نولش هدي للربين لفهمه ونولل كسليسان امتحان واحد شرته مثلا أنا رنكرنا الفلسفة العالمية marka la isku wada daray jawaanibtay kala gedisan oo dhan marka isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini'aadamka iyo qaabku u nooliyay dib baa jirta falsafo kasta aqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan maxaa dunida sharku u jooga xillanay dunida tan inay mushkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taalo oo waxaan oo dhib yaaliin aslan baa loogu qastiyay waayo waxa loogu talagalay in la isku itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee la isku itixaamo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati dunya bisamawatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo wa qaala quraanku le subhanahu wa ta'ala وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدا إي عركا إي دولكا إي وحا نودمي ودسي وحن لأنه وحا علاقة إنسان كي الزمن ككدحية إي جيري إي النولل إي تطور كم ترى بدن لو بني آدم كمرأيه ودمانتي وحا الله طلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحين لنا إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كردقي متفهم يكون كانوا كنوا لي وسميعا بصيرا بكردقي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه با إلهي سبحانه وتعالى نلاش فهم كذا حقيقي هي وحي هي إنه قفكو قرطه حياة الدنيا إنه أتشوغو إن لا اتحامي إن تكون راحيسان يصير تكون برواقيسة يعني ماها نولش الدنيا وحا لو جوغا ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaamada inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo qofka bini aadamka waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiraanyada werwerka waxa soo dhan inuu dareemo waxa kaloo nolosha laga yeelay waxa soo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiraanyoodo werwero murugoodo waxa soo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxa inuu dareemo كونك دمانتينا waxa laga buuxiyay waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo waxaan marka shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xiriirka ka dhaxeeya qofka bini aadamka iyo nolosha dhamaanteed waa qaab in la itixaamo qofka bini aadamka حياة الإنسان بين لنا مركه هذين ربنا فهم الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها وامتحان ومشقة لقد خلقنا الإنسان في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لا بد من كبد ولا بد من كدح هدان وردنا نصوك وبوحا لنا فهم الحياة أرى إسكا كوبان بينكو شرح كرنا نولشة دمانتين معنى كلاي السمين سامجرته اللهم إلا الاختبار والامتحان نيتيت المويان وتجربة ابتلائية وجهك كليه وقفكو امتحان كاسيكا قدبانا وهدي مشكلتها هنا إنو صبرك يا وحن ولا يماضه هذا إن معاذ يبر واقد يبرارا يكنت هنا إنو شكر الله يماضه وحن لنا مرك قفك صابرك على الابتلاءات المؤلمة أما شاكرك كوى على الابتلاءات الممتعة قفك شكر نقية إيا قفك صبر يلا بضبا ابتلاءك كان وو كسيبتا
markay nimcada ama baladas ay ula yimaadaan wejigii xaqiiqiga la rabay inay uga jawaabaan. sida daraaddeed waxaan odhan karnaa ibtilaa'aadku dadku way ka warwaraan waayo noloshaanay saani u fahmin. laakiin waxaan leenahay waxaa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca, in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaat alkamaal albashari, oo aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane. idan waxaan leenahay balaagu wuxuu u yimaadaa lirifca, in la kor yeelo. waxaan odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badantahay. ashaddu nnaasi balaana alanbiyaa uma asaalixuun. in kaana axaduhum layubtalaa bilfaqr xataa maa yajid axaduhum ila alcabaa'ati alatii yaxwiiha wain kaana axaduhum layafraxu bilbalaa kamaa yafrax axadukum biاlrakhaa. wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam in dadka ugu imtixaanka badan la ambiyada yihiin, dabeetana saalixiintu ay ku xigto. midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu imtixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanaynin, cabaa'ada yare u huwan yahay mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin. laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo. sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu faraxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaa'aadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya. bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah inuu nebigu ku tilmaamaya ina cidamu اljazaa maca cidami اlbalaa, abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay balada weynideeda. waina allaha idaa axabba qawma ibtalaahum. weliba nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam qoom hadduu alla jeclaado subxaanaه wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa. faman radya falahu ridaa waman sakht falahu sakht. cidda raalli noqotana raalli buu leeyahy, cidda cadhootaana cadho alla buu leeyahy walciyaadu biاllah. waxaan leenahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markaas buu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto mas'alada tani. waa ka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka tirmidi warinaya ee uu xasaninaya wuxuu leeyahy idaa araada allahu bicabdihi اlkhayr cajala lahu alcuquuba fi اddunya. haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladdiisaba adduunkaa loogu horumariyaa, dhibtiisa adduunku ku qaataa. haddii khayr alle uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogu dhibtiisa oo dhan qaataa. waidaa araada allahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafii bihi yowma alqiyaama. ka alla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo, waa loo kaydiyaa si bar qudha loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahay uu gaadho. waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladooda kala qabsataa wejiyo kala gedisan bay leeyihin. kow, ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lilrifca watathiir, in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yaalo. waxaa kaloo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhacaa litamxiis, in iyaga sufuuftooda la kala sooco, kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado. ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aطayib. aayaadkaasi ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka mu'miniinta ah sidan ay yihiin inaan lagaga tegaynin ee la kala saari doono alkhabiiثu waطayib. laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyuطlicakum cala alghayb. haybkana laydinma ogeysiinayo, waana laydinkala saaraya. maxaa lagu kala saaraya? waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud. yacnii ibtilaa'aadka iyo mashkilaadkaa ku kala baxaysaa. markay mashkiladdu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanayaa keeda munaafaqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay, keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrkuun waday. mashkiladdaa dadka lagu kala ogaado. ama haddii layska wada nimcaysan la wada socdo dadku ma kala garto, lama kala garto. idan haddii la rabo mujtamaca in tamxiis lagu sameeyo, in la kala soco, waa laabudda min ibtilaa'aat.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آيات كاسو دمي waxay sheegayaan koo waxaan leenahay lirifca ثانيا waxaan leenahay liltathhir ثالثا waxaan leenahay ibtilaaga qofka mu'minka ku dhaca waa litamxiisi sufufihim si loo kala saaro sufuuftooda لا 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 لا